You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. ma islahayd mar wad imanaysa Luxembourg adigoo soo booqanaya oo waxa weey dalxiis ku ah runtii haddii dalxiis ahaan u timaado wadankani waa wadanka wadamada ugu dalxiiska wanaagsan dunida tan maanta aan joogno waliba qaaradda Yurub runtii maadaama loo yaqaano wadanka caga Let me redeem myself tonight, 'cause I just need one more shot. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يفلوكلة وعبد الرحمن دولار كانال كيسي هديتكم عصبتها هاي لايك سبسكرايب سوكلا جنبالي الكفرة طبعا ما توحي نتجي دونا بورتا سادو تشيدان كاميرا دمات كواركي دونتان ينتجي دونا وحرجيني طبعا نادي الراعدو هالكاس أيون وذا قبنا سين وقت وسوق قادنا فلوجان ما توحي نقول تلاقي لي حافظان دقينا هاي طبعا فلوجر قروح بدنا تصوتوا فلوجاني وقمت لقي انت دقيقة بدنا نقاطه only 10 minutes أيان نقول تلاقي لي هدو الله بدل وقلاده وحرجيني طبعا إن نادي الراعدو هو اللي فلوجاني جلس سوق قيب قادته وحنتجي دونا قيب تسرع حافظني لوخن اسفايل حافظني waxa weeye xaafadda degmada ugu dambaysa caasimada soo kale waxay shaar la tahay ama xuduud la leedahay gobol dalxiiseedka Meekshi ay xuduud la leedahay runtii taariikh fog ay xaafaddan loo khanisfayn leedahay waxaan rajaynayaa inaynu ku soo wada dalxiisno soo wada daawano bal taariikhda xaafaddan meelaha ugu quruxda badan ee xaafaddan leedahay inkastoo aan wada gaari karin dabcan way xaafad sayd u balaadan tahay okay so Is it too late now to say sorry? dabcan waxaan soo gaadhay qaybta sare ee xaafadani maanta waxaan joogaa meel buur oo ka sareysa dhulka falogana waxaan ugu talagalay muddo 8 daqiiqo hadda qaybta I'll take every single piece of the blame if you want. hadda waxaan soo gaadhay qaybta sare ee loo khanisfail waa xaafadani hadda aan joogo xaafadani waa degmada ugu dambaysa caasimada Luxembourg kadibna waxa ka bilaabmaysa gobolka ku xiga oo loo yaqaan Meekshi kaynta soo jeedada aragtaan ama buurtaasi wixii ka dambaysa waxa weey gobolka Meekshi la dhaho dabcan qaybtan aan joogo waa qayb sayd u qurux badan runtii muuqaal wanaagsan wana xaafad anigu aan ku noolahay hadda wow I'm not just trying to get you back on me, 'cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know. hadda toos waxaan soo gaadhay qaybtani waa qaybta sare xaafadda loo khanisfail xaafad ba ka horeysa history Forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. dabcan xaafaddan aan joogo ama degmada loo khanisfail waa degmo runtii saa'id u qurux badan xaafaddan waxay leedahay taariikh runtii dadka cajab gelisa waliba waxay leedahay taariikhaha Luxembourg ugu waaweyn waa xaafadaha ku yaalaan qaybtan naga sareysa hadda waxa ku yaala Romaniyaanta boqortooyadii la oran jiray ceelashii uga qodnaa xilligaasi oo runtii ah meel qadiimiya oo ku dhex yaala kaymaha xaafaddan ee qaybta sare buuraha runtii bal waynu wada tagi doonaa qaybtaasi waynu soo fiirin Can someone call a referee? 'Cause I just need one more shot. Have forgiveness. muuqaal ahaan jawiga xaafadani saa'id buu qurux badan yahay maantana waxa weeye maalin roobabowa dabcan sad aragtaan ama dhulka sida uu yahay maaha markii hore sakan soo fuulo maalmaha qaar aanan waxba qabanaynin dabcan halkan baan soo fuulaa inkastoo insha Allah after vacation طبعا ay adkaanayso fasax kadib in halkan imaado fologeedana sii wado teeda kale anigu waxaan ahay qof sayd u caajis badan runtii mushkilada haystana waxa weeye hawlaha kale qabta ka badan YouTube kan only baashal ma soo gala iyo waxyaabaha qaar inaan fologeeda qaar indii soo gudbiyo dadku in badan soo weydiiyaan commentiyada ku arko dabcan waa ku mahadsantihiin sad commentiyadiina u soo qortaan quruxda badan sad YouTube ugu xirantihiina oo ku mahadsantihiin markaas dabcan waxaan iga dalbanayaa inaad like iyo subscribe soo asxaab kale oo fara badan oo aan wali arag Missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know. dabcan run ahaantii hadda bal waan ka tadegayaa sababta waqti bay qaadanaysaa in tagno qaybta Roomaanka ceelashaas hore qoteen ku yaala buurta xaafadan dusheeda dabcan waqti bay qaadanaysaa in saacadu hadda waxay maraysaa xilligan waa 18 iyo 40 daqiiqo soo taqaanaan ama 6 iyo 40 daqiiqo dabcan inkastana hadda cadceedu dhicin
laakiin runtii waxoogaa saaid buu adag tahay inaan waqtigaas hore u sii socdo soo way naga raali gelinaya maadaama qaybta hore vlogga ku soo aragteen hadalkaasi laakiin hadda waan sii socon doonaa insha Allah qaybta man hore u sii gali doonaa xaafada kadibna waxaan tagi doonaa bal baaga xaafada lagu nasto qayb kamid ah runtii oo caan ah oo waliba xaafadani ay ku nastaan dadka population-ka xaafada I'm not just trying to get you back on me, cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. طبعا سانو دوبي عاو فلوق ayaa dhulku wuxuu noqday madow hadda waxaan soo gaaray baag baagyada lagu nasto baag waxa la dhahaa dadka Soomaaliya joogaan garanayn meelo ku dhex yaala xaafadaha oo jimicsi lagu dhex sameeyo lagu cararo waa sida beerahan oo kale hadda ni jeedaan meelahan baag la dhahaa dabcan runtii meelahan waa lagu cararaa sport ba lagu sameeyaa dadka qaarna familiyada kalena way ku nastaan markaas meelahaas oo kale waxa loo yaqaanaa baag loo yaqaanaa dabcan runtii xaafad kasta oo markaas kamid ah magaalada way leedahay baagani si ay dadka xaafadda degani marka ay waqti hayaan ay waqtigu qaataan hadda waxaan soo gaaray markaas baagaasi iyo meelaha sida aragtaan runtii weyni kala wadankan hadda saaid ayuu dalxiisayaal badan yahay oo wadamada ugu dalxiiska badan dabcan qaaradan Europe Luxembourg maadaama meel istaraatiiji ku taalo runtii saaid muuqaal qurux badan ay leedahay soo kale waxa loo yaqaanaa wadnihii cagaarna ayaa loo yaqaanaa maadaama wadankan cagaar yahay gebigiisu guya jiilaal iyo dayr Every single piece of the blame if you want me to, but you know that there is no innocent one in this game for two. I go and then you go. dabcan waxaynu ka nimid imiga halkaas ama buurtada aragtaan hoosteeda ayaan ka yimid ka soo dhaqaaqay waxaana soo gaaray qaybtan xaafada qaybta siman loo yaqaan ama qaybta baaskiilka lagu socdo ee xaafada dhexdeeda wadooyinkan waxa lagu talagalay baaskiilka loogu talagalay hadana waxyaabaha qaar macnaha aan si kidis tusaalo kala markuu qof meesha ku dhaacay inuu ambalaas soo gala maaha laakiin sidoo kale waxa loogu talagalay wadooyinka baaskiilka iyo dadku inay ku lugayaan xilliyada ay mujabaxsanayaan beerahan kale waxa loo yaqaanaa baag baa loo yaqaanaa dabcan qaybtan ka midna qaybtaasi laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah vlogyada ku xiga inaan qaybtaas oo kaynta dhexdeeda galo kadibna bal vlog qurux badan inaga soo sameeyo dabcan ma maqli jirtay wadamada Yurubta waxa jirta meelaha qaar looda lagu ilaaliyo dabcan halkan sida aragtaan hadda flightiyada duulaya qaybtan waxa u dhow madaarba u dhow markaas madaarkaas diyaaradaha ka imanayaan diyaaradaha waa laba nooc waxa kamida qayb kamida diyaaradahani waa qaybta dadka rakaabka ama qaybta cargo-ga qayb kamidana waa qaybta ardayda ay ku bartaan ama dadka dalxiisayaasha ay la socdaan hadda waxaan soo gaaray qaybtii baagan soo gaaray dabcan halkan waxa joogta lo dabcan sidii Soomaaliya kala u taqaaneen looda in beerahan oo kale ay daaqaan loodan ciidamada ilaaliso waxay ku jiraan meelaha shabaka dhexdeeda ama silgahan oo kale u xidhan kadibna meelahaas ayaa lagu dhex ilaaliyaa dabcan waa meelo beel daaqsimeed ah oo loogu talagalay loodani caafimaadkoodana lagaga warhayo hadda ka hor Swiss waxaan ku arkayay Switzerland wadan kala dhaho hadda ka hor Switzerland waxaan ku arkay wadan kala dhaho in looda Switzerland qaab kamida qaybta hoose ee dhulka ay ay galeen kadibna helicopter lagaga soo saaray sidii oo kale laakiin dhulka waa dhul taagsimeeda weeye waa dhul taagsimeeda waxaana la xusayaa maalmahani taariikhda xaafadan iyo kaymaha la xusaya kaymaha runtii waa la ilaaliyaa saaid waxaana ka yaala xeerba ka yaala qofkii kayntan gooya ama even sameeyo wax qaladaad oo kayntan laga galayo ama nabad guuridoo kale dabcan waxa lagu sameeyaa in maxkamad la istaajiyo kadibna dambigaasi lagu soo oogo runtii saaid ay dadkani u ilaaliyaan dhirta saaid la xadna ugu taxadiraan hadda wada aragtaan dhamaan geedahani waa geedo qadiimiya oo xaafadani ka baxa waxa weey si lagu muujiyo boorka arkaysaan Sorry.
dabcan runtii halkaa fog ayaan ka yimiday hadda xerada fardaha ayaan u dhowahay dabcan bal xerada fardaha waynu eegi doonaa meelahan ayaa lagu dhaqaaleeyaa xoolaha waana beeraha aad arkaysaan runtii waxa u xidhan shabagyadan aad arkaysaan runtii saaid ay qurux badan yihiin dabcan waad ka helaysaa markaad si fiican u aragto waan ka xumahay farduhu xeradan ayay ku jiraan laakiin waxa weeye lama arki karo maadaama gurigaas ay ku jiraan maantana ay tahay maalin roobaboowa saaid ayaan uga xumahay laakiin waxaan rajaynayaa maadaama wadankan weliba gobolkan uu fardo badan leeyahay dabcan aad fardaha aragtaan intii sayid maxamed cabdulle xasan ku xasuusan jirtay iyo daraawiishtii dabcan waad arki doontaan runtii bal ka waran muuqaalkani siduu ku leeyahay waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan ka heshay jawigan dabcan san aniguba uga helay adna waxaan rajaynayaa inaad uga heshay oo uu ku cajabiyey weliba uu yahay runtii muuqaal saaid u qurux badan oo ku raali gelinaya waan rajaynaya Luxembourg inaad soo booqato weliba xaafadan deganahay igu soo booqato kamana mid noqoto boqolaalka kun ee Luxembourg soo dalxiisaga xilliyada xagaaga guga iyo intaba فلوجان وما تلاقي سيد فلوج دي هراي نص على 30 دقيقة يمكن بدن فلوج ير و8 دقيقة نقول تلاقي طبعا فلوجان waxaan doonayay jawigan qaadanay ila qaadataan runtii dadkan halkay ku cusub tahay subscribe soo saar falogyada saan soo badiyana waxa weyn kastana waqti badan aan u haynin laakiin maalmaha weekendiyada sabtida xadda kale falogyo qurux badan aan soo duubo dabcan waxaan rajaynayaa in aad subscribe saarto gambaleelka furato sidoo kale aad like iyo comment-gaaga wixii fikirkaaga soo muujiso faloga ku xiga waxaan tagi doonaa dabcan haddii uu Rabbi aqbalo insha Allah waxaan qaban doonaa Rimrish gobolka la dhaho runtii oo gobol dalxiisayaasha loogu talagalay si qurux badan u dhisan biyo qurux badan iyo biyo waaweyn leh iyo weliba laashidooyin la raaco runtii waxaan rajaynayaa inaan tago haddii situationka cimiladu aysan wax uga dhaanto ayaan rajaynayaa dabcan oo inaguna soo kale ila qabataan ila tagtaan ila soo damaashadaan ila dalxiistaan hadda waxaan ku dalxiisnaa halkan falogeenu si socon doonaa inkastoo ku dhow yahay gunti iyo ma islahayd mar uun Yurub beeraha laga qodaa kadibna beerahaasi waa beerada laga wax soo saara beerahan hadda xaafada beertan way qodan tahay aan dul marayno bal waxaan fadhiisan doonaa kursiga nasashada ayaan fadhiisan doonaa beertan u dhow dabcan waxa iga dambeeya sad aragtaan beer qodaala oo beerihii wadanka kale sidoo kale u qodan iyo iga dambaysa wax soo saarka beeruhu waa waxa ugu muhiimsan ama qurba jooga ama qolqol jooga in beeraha wax laga soo saarto waa main importiga waana qaybta ugu muhiimsan weey runtii waxaan rajaynayaa dabcan in dad badani ay muuqaalkan ka helaan wax soo saarkana ay bartaan oo waliba dhulkeena wax ka soo saarano falogeena hore ay noogu soo socon I hope I don't run out of time cuz someone call a referee cuz I just need one more shot have forgiveness wadooyinkan waxa lagu talagalay baaskiladaha dabcan bal wadooyinkan baaskiladaha lagu talagalay ayaynu toos u qaadi doonaa down is it too late to say sorry now السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا وان رجينيا داوده فلوجان inaad ka heshay hadii falogan ku soo gaadho waxaan ka dalbanayaa inaad like share iyo subscribe inta ku qabato si aan falogyo qurux badan oo ka badan intaan aan soo duubno falogan maanta intaas buu inoogu eg yahay falogan ku xigay intaan ku kulmi doono waxaan dhamaantiin rajaynayaa caafimaad qab iyo cimri dheer salaamu alaykum